Daawadayaal ku soo dhawaada Goob Media. Halkani waa Goob Media. Saaka waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinteena waxyaabaha ay dadku iyo sida ay dadku u arkaan cidda ku habboon maanta madaxweynaha Soomaaliya ee 4 sano ee soo socota iyo cidda ka saari karta Soomaaliya waxaanay ku sugantay. Haddaba sida ay qoreen aqoon-yahano fara badan iyo dad badan oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed, waxa ay u arkaan ninka ugu macquulsan ee loo dooran karo madaxweynaha dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo ah ninka ugu dheer musharaxiinta Soomaaliya ka sharaxan dhammaantood. Waana ninka ugu degan, waa ninka ugu aragtida fog oo fahmi kara halka ay dhibtu ka socoto iyo arrimaha Soomaaliya ka jiray 30 sano ee ugu dambeeyay. Waayo ninkan waxa uu leeyahay hibooyin fara badan oo uu ku hanan karo shacabka xilka ay u doortaan, haddii ay u doortaan xilkaas. Sidoo kale waxay aqoon-yahanada iyo dadka aragtida dheer ay ninkan ku doorteen oo ka qoreen inuu yahay nin caqli badan, isla markaana nin degan oo farxad leh oo dabeecad wanaagsan. Sifihiisa oo dhan waxay ku tilmaameen inuu buuxiyey shuruudihii lagu dooran jiray qof hogaamiye noqonaya. Haddii laga maarmi waayo qofka kale ay ku soo xijiyeen inuu noqdo madaxweynaha dalka Soomaaliya ee ay yiraahdeen waa ugu macquulsan yahay oo lambar 2 ayuu ku jiraa, waa Shariif Sheekh Axmed, oo ah nin run loogu soo hagaago, alla ka baqna leh, aan xukun jeclayn. Waa ninkan waxa uu ku sifaysan yahay madaxweynihii hore ee Shariif Sheekh Axmed, sida ay qoreen weeye, wuxuu ku sifaysan yahay dowlad dhiska dalka Soomaaliya iyo aasaaskeeda. Wuxuuna uu ka soo qabtay intuu xilka hayay waxyaabo badan iyo caqabado badan oo dalka Soomaaliya ka jiray buu ka soo gudbay. Waxaana uu salka u dhigay maamulada ka jira ee federaalka Soomaaliya ka jira. Waana nin sharci yaqaana, isla markaana alla ka cabsi leh, aan xil jeclayna, jecel inuu xilligeedii doorashada ku qabto, xilligeediina ku wareejiyo haddii laga helo, kuna qanca. Xukun jacaylna ma laha bay yiraahdeen. Sifihiisa baa ka mid ah, dabeecaddiisu ma xuma, wuu dulqaad badan yahay, isla markaana wuu naxariis badan yahay. Markaa sifooyinka darteed bay ku qaateen Sheekh Shariifna.